wararka ugu dambeeyay ee laga helay magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in halkaas ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo u muuqda kuwa si weyn uga duwan kuwii hore looga bartay. Wararku waxay tilmaamayaan in magaalada Kismaayo ay ka socdaan qorshayaal lagu doonayo in lagu dhiso guddoonka mid ka mid ah laba baarlamaan oo looga dhawaaqay. La sheegayna in mid waliba uu yahay baarlamaanka rasmiga ah ee Jubbaland. deegaanada maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa hareeyay xiisado siyaasadeed oo mid waliba ay ka qalafsan tahay midda ka dambaysa. xasarada siyaasadeed ee Jubbaland ayaa waxa ay cirka ku sii toosheen markii isku maalin lagu dhawaaqay laba baarlamaan oo isgarab socda oo la sheegay in mid waliba uu matalayo shacabka deegaanadaasi. labada baarlamaan ayaa mid ka hore waxa Kismaayo uga dhawaaqay guddiga baarlamaanka ee Jubbaland kuna dhaariyay isla goobtaasi. guddi doorasho ay dhiseen murashaxiinta madaxweynenimada Jubbaland ayaa isaguna ku dhawaaqay baarlamaan cusub oo ay yeelanayso Jubbaland kaasoo ay ku dhawaaqeen isla markii guddiga maamulku ku dhawaaqay xildhibaanadiisa cusub. sida uu qaba sharciga doorashooyinka Jubbaland, guddigan ayaa waxaa magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubbaland xilligiisu sii dhawaanayo mar kalena xilka u taagan. hase yeeshee murashaxiinta kale ee u tartamaysa madaxweynenimada Jubbaland ayaa ka biyadiiday guddigaas oo ay sheegeen inuu yahay mid aan sharci ahayn. khilaafka ugu weyn ayaa ka taagan odayaasha dhaqanka oo loo xulay in ay soo doortaan xildhibaanada cusub iyo in odayaasha la faray in oday waliba uu keeno 3 qof oo midkood loo qaadanayo inuu ka mid noqdo baarlamaanka labaad ee Jubbaland. murashaxiinta la loolamaya Axmed Madoobe ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in odayaashaasi aysan ahayn odayaasha rasmiga ah ee dhaqanka ku matalaya beelaha Jubbaland, sidaa daraadeedna iyaga iyo xildhibaanada ay soo xulayaanba ay u adeegayaan oo kaliya Axmed Madoobe. iyaga oo ka duulaya arrintaas ku wajahan doorashada ayay murashaxiintu samaysteen isbahaysi ay ugu yeereen isbahaysiga isbedel doonka. waxaa kaloo sheegeen in caburin iyo hanjabaado culus ay uga imaanayaan Axmed Madoobe ayna ka walacsan yihiin amniga iyo madaxbannaanidooda. murashaxiintu waxay cabashooyin isdaba joog gaarsiiyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya, urur goboleedka IGAD, midowga Afrika, beesha caalamka, qaramada midoobay iyo wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya, waxaanay dalbadeen in la soo fargeliyo doorashada Jubbaland xilligan. dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhinacyada kale ee murashaxiintu ay gaarsiin cabashooyinkooda ayaa fariimo isdaba joog ah gaarsiiyay hoggaanka xilligan ee Jubbaland. soo jeedinadaas qaarkood sida dib u eegista liiska odayaasha soo xulaya xildhibaanada iyo goobta lagu qabanayo doorashada ayaa waxaa ku gacan sayray Axmed Madoobe oo arrimahaasi ku tilmaamay faragelin qaloocan oo lagu hayo habsami u socodka doorashooyinka Jubbaland. sidoo kale Axmed Madoobe ayaa murashaxiinta waxa uu ku tilmaamay inaysan u bislayn doorasho dimuqraadiyad ah oo ku salaysan sharciga aysan ka talinayn xasiloonida iyo mustaqbalka Jubbaland. Jubbaland waxay hadda leedahay laba baarlamaan oo kala jooga Kismaayo iyo Muqdisho. dhinaca kale shacbiga Jubbaland iyo guud ahaanba Soomaali weyn ayaa waxa aad looga dareemayaa hadalhayn culus oo ku aadan arrimaha Jubbaland ee doorashooyinka iyo inay kala taageersan yihiin dhinacyada isku haya siyaasadda maamulkaasi. labada golo baarlamaan oo labadaba lagu dhawaaqay isla shalay oo ay taariikhdu ahayd 13 bisha 8 sanadkan 2019 ayaa mid waliba waxa uu sheeganayaa inuu yahay baarlamaanka sharciga ah ee Jubbaland, isla markaana uu bilaabayo hawshiisa dastuuriga ugu horeysa doorashada guddoonka baarlamaanka. wixii ka dambeeyana ay dooranayaan madaxweynaha cusub ee yeelanaysa Jubbaland. waxaa iyaduna gabaabsi ah muddada ka dhiman goorta loo qorsheeyay in ay dhacdo doorashada oo ku beegan dabayaaqada bishan aan ku jirnay August. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey u shaacisay in aan la aqoonsan karin natiijada ka soo baxda qorshaha doorasho ee Jubbaland. ku dhawaaqida iyo dhaarinta xildhibaanada Jubbaland ee looga dhawaaqay Kismaayo ayaa waxaa hambaliyay maamul goboleedka Puntland iyo qaar ka tirsan axsaabta siyaasadeed ee Soomaaliya. sida horeyba loo shaaciyay sugidda nabadgelyada doorashada Jubbaland ayaa waxaa iska kaashanaya ciidamada Jubbaland iyo kuwa AMISOM. inkasta oo dadka ku xeel dheer siyaasadda Soomaaliya ay saadaalinayaan in baarlamaanka looga dhawaaqay Kismaayo uu dhaqan galayo, haddana waxaa muuqata in arrimaha siyaasadeed ee Jubbaland oo muddaba cakirna ay galeen waji cusub oo xasaasi ah. waxaase laga sugayaa halka ay ku dambeeyaan arrimahaas aadka isu diidan. wixii ka soo kordha arrimaha Jubbaland, Soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka kala soco Milga News online. si had iyo goorba aad noola socoto fadlan subscribe dheh boggan, dabadeedna taabo dawanka ama gambaleelka ku lamaansan.